sida xaqadii qaranka aynu kaga faalloonaynay aan ku ballan qaaday waxa aynu maanta u kurgalaynaa waxa loo yaqaano jaathuumka waxa aynu isku dayaynaa xaqiiqadiisa inaynu ka salgaadhno ee suumanka xidha oo u diyaargarooba safar aynu ugu daadegi doonno gunta garaadka aadamaha aynu kula falanqayn doonno caalamka hoose ee ruuxaanta sharka la gaafureegtaa daawasho wacan mowduuca maanta miiska inoo saarani waa mowduuc si siman u soo jiitay aanay uga hadleen ilbaxnimooyinkii hore iyo kuwa hadda jooga waa mowduuc siro badan oo dahsooni ay ku gadaaman yihiin dadka dhacdada la kulmayna waxa ay soo tabiyaan muuqaalo argagax badan oo naftu judhiba ay ka anfariirayso iyada oo ay jirto aadamuhu dhan walba inuu aqoonta iyo sayniska uu horumar ka gaadhay haddana weli mowduucan waxaa ku hareeraysan weydiimo tiro badan oo warcelin waafi ah sugaya jaathuumka raabuudka amaba juhaamada iyo magacyada kale ee tirada badani dhammaantood waxa ay tilmaamayaan noolaha mowduuceena caawa uu daaran yahay ibnu manduur mar uu jaathuumka ku qeexay dhiganihiisa lisaanul carab waxa uu ku sheegay inuu yahay wax sababtiisa awgeed qofka hurdaa uu dareemo diiqad iyo cabsi halka aqoonyahanada saynisku ay isku raaceen jaathuumku keliya inuu yahay xaalad caafimaad oo qofka la soo darista waxaana ay u bixiyeen baaralayska hurdada haddaba sidee ayuu u yimaadaa jaathuumku qofku isaga oo hurda ayuu baraarugayaa kadib waxa uu isku dayayaa xubnaha jirkiisa inuu dhaqaajiyo waxaase uu ogaanayaa in aanu dhaqaajin karaynin oo bilaa awood uu yahay dadka qaar waxaa intaa u sii raaca inay arkaan xayawaanno bahallo orgob habar duq ah ama noolo kale oo cabsi badan oo ku soo socda ama qolka kula jira kolka qofku isku dayo inuu qayliyo ama uu gurmad codsado hadalka ayuu soo rogan waayaa oo carabka ayaa cuslaaday xubnaha kaliya ee qofka shaqaynaya waa labadiisa indho intaasun kuma eka ee dadka qaar ayaa waxa ay dareemaan inuu laabta noole ama qof uu kaga fadhiyo waxa dadka qaar ay maqlaan codad hoose ama cod dhegta hadal u saaraya oo lala faqaayo haddaba arrinka cabsida leh waxa uu yahay dadkaasi dhammaantood inay hubaan noolayaasha indhahooda inay ku arkeen arrinka ka sii cabsida badani waa in xeeldeerayaasha caafimaadku aragtida noolayaashaas jiritaankeeda ay qireen oo ay caddeeyeen magac caafimaadna ay u bixiyeen muxuu markaa talo noqon karaa magaca caafimaad ee xaaladda loo bixiyey gadaal ayaynu ka ogaan doonaa waa hubaal inay jirto sabab dhacdadani qofka inay ku dhacdo sababaysa balse arrinka kadiska ah ama lama filaanka ahi waxa uu yahay aqoon-yahanada caafimaadku inay sheegeen weli in aanay garanaynin sababta jaathuumka keenta ama sida iyagu ay u yaqaanaan baaralayska hurdada sheekadani ma aha dad gaar ah mid ku kooban ama aan shaacsana ahayn etirokoobiya la sameeyey waxay caddeeyeen 30% dadka adduunka ku dhaqan ka mid ahi inay dhacdadani ku dhacday saddexdii qof ee kastana ugu yaraan in ay midkood hal mar ay soo martay oo dhacdadan uu la kulmay aan ku weydiiyey xaaladdan sababteedu ma kula tahay in ay noqon karto culisyada nololeed ee noloshan casriga ahi ay leedahay stresska depressionka iyo hamiga tirada badan ma horseedi karaan bay kula tahay xaaladdan haddii warcelinta anigu aan kaa furto jawaabtu waa maya fikradda jaathuumku ma aha keliya mid casrigan dhalatay ee waa fikrad qarniyo hore oo tiro badan soo jirtay iyada oo magacyo iyo aragtiyo kale lahayd tusaale ahaan ilbaxnimooyinkii ka hana qaaday dalalka bariga Asia ilaa laga soo gaadhayo boqortooyadii Roomaanka jaathuumka waxaa looga yaqaanay magaca alxaaduun ama ruuxaanta sharka badan ama inkiyobos taariikhyahanadu waxa ay sheegaan dhammaan riyooyinka dhadhabka ah ee xun ee dadkii hore ay ku riyoon jireen eedeeda inay xaaduunka u tiirin jireen qaxitaankiisa waxa ay ku sheegeen inuu yahay noole laabta kaaga fadhiisanaya oo riyooyin xunxun abuuraya dhaqdhaqaaqana kuu diidaya intaa waxay ku dareen xaaduunkaasi qofka hurda haddii uu ka helo inuu howlgal galmo oo dhammaystiran uu la samayn karo dhibanaha hurdada iyo soo jeedka u dhexeeya waxay sidoo kale sheegeen inuu jiro xaaduun lab ah iyo xaaduuno dhadig ah ama sida loo yaqaano saykibos waxaana ila tahay noolaha Soomaalidu ay u yaqaanaan kooca ee ay sheegaan inay ragga hurdada ku soo booqato inay halka ka soo jeedo ilbaxnimooyinka fog aynu ka nimaadno oo aynu u soo dhalandhoolno sanadka 1664 sida ay tibaaxeen websaydo badan oo caafimaad ahay markii ugu horeysay ee si dhammaystiran loogu kuurgalay jaathuumku waxay ahayd sanadkii 1664 waxaa la helay qoraallo uu ka tegay dhakhtar reer Holan ah oo cidda uu yahay aan la garanaynin waraqaha waxaa ku qornaa markii habeennimadii la gaadhay ayay gabadhii bukaanka ahayd hurdo isu diyaarisay waxay aaminsanayd inta ay hurdada ku guda jirto in shaydaanku uu ku soo gurguuran doono oo cunaha uu ciijin doono marmarka qaarkood ay weyn ama nin tuug ah ayaa laabta kaga fadhiista oo naqaska ku dhajiya marka ay isku daydo inay hadasho ama noolahan ay iska caabiso waxa ay dareentaa jidhkeeda far ka mid ah in aanay dhaqaajin karaynin waxa ay sidoo kale awoodi weydaa nafteeda inay hurdada ka kiciso oo ay baraarugto
mararka qaarkood saygeedu waxa uu maqlaa codad daahsoon oo aan la fahmaynin oo iyada ka soo yeedhaya. sida inoo muuqata, jaathumku ma aha fikrad ku kooban ilbaxnimo gooni ah ama dad xilli gaar ah noolaa, ee waa fikrad ku fidsan cirifyada kubadduleedkeenna. dabcan way kala duwan yihiin magacyada bulshooyinku ay u yaqaanaan iyo xataa qaababka dadku ay ku tilmaamaan, sababtuna waa diimaha, dhaqamada iyo sheeko xariirada bulsho waliba ay aaminsan tahay. tusaale ahaan, deegaanka Newfoundland ee ku yaala dalka Canada, dadka deegaanku waxa ay ku tilmaamaan jaathumku inuu yahay habar jin ah oo dadka habeenkii ku soo gudda, halka Masar iyo badba dalalka Carbeed iyo kuwa Islaamka ah looga yaqaano jaathumku inuu yahay jin lab ama dhadig ah oo dadka hurdada ku soo weerara. dalka Talyaaniga waxay u yaqaanaan jaathumku inuu yahay noole ay ula baxeen bandafiki. waxa ay sheegaan inuu yahay rooxaanta sixiroorad shar badan, mararka qaarkoodna waxa ay iska soo dhigtaa yaanyuur weyn oo cabsi badan. koonfur Afrika inta badan jaathumka waxay u yaqaanaan sixirka madow inuu keeno, waxaana ay ku sheegaan inay yihiin noolayaal gaagaaban oo coon ah oo madaxyo waaweyn leh. Jabaanisku iyadoo ay jirto inay horumar ka gaareen dhanka aqoonta iyo sayniska, haddana bulshadooda inteeda ugu badani waxay aaminsan tahay sababta jaathumka ka dambaysa inay tahay rooxaanta sharwadayaasha ah. xaaladdanna waxa ay ku magacaabaan kanashibari iyo magacyada kale ee tirada badan ee deegaanada kala duwan looga kala yaqaano. waxa ayna tusayaan sida dhacdadani ay u faaftay ee goob kasta oo dunida ka mid ah ay u gaadhay. sidee bay xaaladani ku dhacdaa haddaba? goorma ayaana dhacdaa? dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen xaaladani inay dhacdo inta lagu guda jiro hurdada, marxaladda loo yaqaano dhaqdhaqaaqa isha ee dhaqsaha badan ama REM. marxaladdan qofku marka uu ku jiro waa marxaladda uu riyoodo. inta marxaladdan lagu guda jirana, firfircoonida maskaxdu fiiqii ugu sarreeyey ayuu gaadhaa. maskaxdu waxay kolkaa hakad gelisaa xidhiidhka jirka kala dhexeeya si qofka ay ugu hor istaagto in uu dhaqdhaqaaqo oo uu la falgalo waxa uu ku riyoonayo. haddaba paralyska hurdadu ama sida inagu u naqaano jaathumku waxa uu dhacaa kolka iyada oo lagu guda jiro marxaladda REM-ka uu qofku si kadis ah u baraarugo. kolka uu tooso, firfircoonidii maskaxdu fiiqii ugu sarreysay ayay maraysa, halka xubnaha dhaqdhaqaaqoodu uu hakad ku jiro. waana waxa qofka ku keena inuu baaralaysnimo dareemo isaga oo soo jeeda, waana sababta keenta inuu jirkiisa dhaqaajin kari waayo. haddaba haddii sheekadu intaasuun ku kooban tahay, maxay yihiin noolayaashan cabsida badan ee dadku ay arkaan? maxaa dadka cunaha iska laalaadiya ee neefta ku celiya? waa weydiin warcelin u baahan. dhakhtaradda cilminafsiga ku takhasustay ee Silifa Barola sidan ayay hadalkan u dhigtay: inta qof uu ku guda jiro paralyska hurdada, si dabiici ah ayuu u neefsadaa, indhihiisuna way furan yihiin. sida awgeed qofku waxa uu u maleeyaa si dhammaystiran inuu u soo jeedo oo waxa hareerihiisa ka dhacaya uu la socdo, halka dhab ahaantii qofku uu ku sugan yahay marxalad u dhaxaysa waaqica iyo riyada. waxay intaa ku dartay, maskaxdu markay aragto qofkii inuu baraarugay oo wareer uu ku sugan yahay, ayay soo hordhigtaa riyooyinkii uu markaa ku riyoonayay, iyada oo isku dayaysa xaaladdiisa inay kula tacaasho. hase ahaatee, qofka indhihiisii way kala furan yihiin, maskaxdiisiina way riyoonaysaa. taasi waxa ay keentaa riyadii maskaxdiisu ay waday inuu qofku hortiisa ku arko oo wax dhab ah oo hareerihiisa ka dhacaya ayuu la ekaadaan. taasina waxa ay keentaa qofku inuu xanuun dareemo, xaaladaha qaarkoodna uu dareemo in naqaska lagu dhajinayo oo hawadu ay ku yar tahay. kolkaa ma malaysan kartaa cabsida jaathumku uu qofka u horseedi karo? waxyaalaha horseedi kara xaaladdan dhakhaatiirtu waxa ay ku sheegaan in stresska iyo iskubuuqu ay kaalin ku leeyihiin. sidoo kale waxaa qayb ka qaata xanuunada nafsiga iyo xanuunada waalidka laga dhaxlo. waxaa sidoo kale ay tilmaameen waxyaalaha ka qayb qaata qofku inuu hurdada ku arko jaathumku inay ka mid tahay qofku inuu dhabarka u seexdo. madaahibta muslimiintu guud ahaan waxay isku waafaqeen dhabarka oo loo seexdaa inay makruuh tahay, iyadoo oo dabcan aanu jirin xadiis ama aayad si dhab ah u xaaraantinimaynaysa dhabarka in loo seexdo. haddana aqoon-yahano badan oo muslim ahi waxay dhiganayaashooda ku soo arooriyeen dhibaatooyinka ay leedahay in dhabarka loo seexdo, waxayna ku taliyaan qofku inuu dhanka midig u jiifsado kadib uu bidix isku rogo. qodobka haddaba casrigeennan waxaa caddeeyey aqoonta iyo sayniska oo sheegay dhabarka ama caloosha oo loo seexdaa inay waxyeello ku keento caafimaadka xubnaha dheefshiidka iyo sidoo kale wadnaha. jaathumku haddaba ma leeyahay cilaaj lagula tacaali karo? xaalad taagan si aynu xal ugu helno, marka hore waxaa laga maarmaan ah in aynu garanno waxa keenay ee sababta u ah. ilaa iyo iminka lama hayo sabab cad oo jaathumka ka dambaysa ama horseeda. sida awgeed, xaaladdan cilaaj gaar ah oo la sheego looma hayo. keliya dhakhaatiirtu waxa ay ku koobsadaan talooyin lagaga dhowrsan karo ama lagu dhimi karo xaaladdan. talooyinkaana waxaa ka mid ah sida ku cad website-ka hay-adda caafimaadka ee Ingiriiska ee NHS: maalintii qofku inuu seexdo hurdo ku filan, isaga oo waqtiga uu seexanayo iyo waqtiga uu soo kacayaba nidaaminayo. inuu qofku dhaqdhaqaaq sameeyo oo sport ciyaaro sida socodka, orodka iyo waxyaalaha la midka ah
ugu yaraan 4 saacadood ka hor inta aanu seexanin. hurdada ka hor in aanu qofku cunin cunto dufan leh ama alcohol aanu cabin iyo in aanu dhabarka u seexanin. haddii xaaladaha jaathumka ee qofka la soo gudboonaada ay sidaa ku tegi waayaan, waxa ay dhakhaatiirtu kula tacaalaan dawooyinka loo isticmaalo depressionka. sidaana waxa aqoonta iyo saynisku ay ku guul daraysteen inay si quman u qeexaan waxa uu yahay iyo waxa lagu cilaajin karo mid ka mid ah xanuunada ugu caansan casrigan aynu noolnahay. taasina waxay horseeday doodii lagu kala aragti duwanaa jaathumku inuu jiro iyo inaanu jirin, aqoonta iyo saynisku inay soo afjari kari weydo ilaa maalinkan maanta ah.